intaasoo halyay baan hayaa hilimadoodiiye u hadaafe aakhiro raggii howlkarka ahaaye halkanna caawa kuma koobi karo qaar kala hadhaye hambal iyo salaam baanu diray hadiyad waayeele ha yeeshee waxaan la hinqaday oo hadalkay geeyey hawd iyo hargeys iyo togdheer hilinka laascaano hobya iyo nugaal hoose iyo haaman iyo doollo hoosada sanaag iyo barbaran hogobyadii awdalka hayaantay maansadii dhulkay hoyga ku lahayde ka hayaantay maansadu dhulkay hoyga ku lahayde inkastoon hogaanshiya abwaan haybna ka ilaanin weli mahaya qaar la higsado garaa halkoodiiye hunguraan hantaa tacahayaa hoday dadkii qaare hunguraan hantaa tacahayaa hoday dadkii qaareen sidii neef dhurwaa ku habsadoo mici ku haylhaylay sugaanta geerida heshiiyo dacowga hiigaya hadba waxaanu saafaacidaan sii hudda ogeyne afkuse hadal madaaye hadduu soo hirmaca uurku heeraabta nimankii horaa laga halqaataaye hanfada naftiisa hawirow hubucu waceebe hanfada naftiisa hawirow hubucu waceebe nin waliba wuxuu hidin kariyo hadafka weedhiisa rag hubsiina badan baa jiray oo nabid halmaamayne wayse dhaqan habaabeen raggii goolka hayn jiraye wayse dhaqan habaabeen raggii goolka hayn jiraye ninkii gabayga kala hadiye hibada loo siiyey hablihiiyo markii hooballada laga horraysiiyey hirwa kama duwanaa maansadii haybadda lahayde maxaan haatan kaga daalayaa maan iskaga hoydo maxaan haatan kaga daalayaa maan iskaga hoydo daawadayaal waa madasheenii saddexaad iyo marti sharafka koowaad abwaan axmed colaad qorane sidii caadada aynoo ahayd gabayadii aynu ka qabanaynay iyo suugaantiisii oo abwaanku inoo soo diyaarin jiray sidii caadada aynoo ahayd waxaa barnaamijka inoo daadihin doona cabdallah xaaji cismaan iyo xuseen oo kamarada inoo haya aniga oo cumar maxamed ah falyatafadal cabdallah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد aad baad u mahadsan tahay cumarow waa sidaa cumar uu sheegayo waa madashii saddexaad caawa oo aynu kula kulanno axmed colaad qorane oo aynu ka qabanayno maansooyinkiisii badda ahaa axmed colaad qorane qeybtii koowaad ayaanu kusoo sheegnay taariikhdiisa oo xoogaa faahfaahsan oo inoo faahfaahiyey inkastoo aanan kusii dheeraan bal caawana haddii alla yidhaha waxaad halkan kala soconaysiin qaybtii saddexaad oo uu axmed inoo bilaabo waxaana caawa rajaynaynaa inuu gabayadiisa kuwii ugu dhaadheeraa aynu xaggan ku qaban doono axmedow bal gabayada ugu dhaadheer waxaad caawa nooga bilaabay haddii alla ka dhigo gabaygii aada u bixisay xuskii abwaanada gabaygaas oo sida magaciisaba ka muuqda aada raggii abwaanada ahaa ama gabayaaga ahaa ee caanka ahaa aada ku xustay intii aada kari kartay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ومحدثنتهين قبين كان عاوا سيدا إنكم بصور شيكتين قبيقا وهرية هدي إلهي إنو قدره وقبيقا عادتكم بعرف كرفتي عبد الله حاج عثمان. haddaba haddii aan wax yar ka iftiimiyo gabaygan aan ku magacaabay xuska abwaanada sababtii igu dhalisay waxay ahayd xiliyada horta uu gabaygani dhashay waxaan filayaa inay ilaa 2000 oo maxaan leeyahay tromstedii 90kii bay ahayd meelahaasaan maleeyahay in ahayd marka waxaa igu dhaliyey habeenada ka mida ayaa waxaan dhageystay idaacadda BBC-da dabeedna cabdilaahi xaaji baa gabadh waraystay oo wuxuu yidhi gabadha heblaaye hebe la yidhaahdaba gabay inoo tirin doonta gabaygii
ayaan dabeetana dhegaystay oon isiri bal gabaygan gabadhu tirinayso ee qaaliga ah uu sheegayo aada dhegaysatid gabadhii gabaygii markay bilowday wuxuu noqday buraanbur buu noqday dabeetana cabdilaahi xaaji markuu warkii ka guray ee uu dhameeyey baa wuxuu yidhi waa gabay dhaxalgala kolley waxaa kaloo iyaduna igu jirtay haddaad idaacadaha iyo tviyada iyo joornaaladii aada aragto hordhacyada ayaad masalan waxaad ku arkaysaa gabaygii hebel dabeetana waxaad soranaysaa barusii dhaadhac dabeetana amba hees buu noqonayaa amba buraanbur buu noqonayaa amba geeraar buu noqonayaa amba jiif buu noqonayaa ama hees hawleed buu iska noqonayaa marka yacni berigii hore soomaalidu ay reer miyiga ahayd dhaqanka ayay ku xidhnaayeen sidaa darteed way kala yaqaaniin qaybaha maansada soomaaliyeed mid waliba noocay tahay mid nin tiriye iyo nin aan tirinba aqoon bay ulahaayeen oo waxba iskagama qaldami jirin intan dambe la reer magaaloobay wixii muusig loo garaacana wuxuunbaa loo yaqaanaa hees wixii aan muusig lahaynna gabay baa loo yaqaanaa halkaa waxaa ka muuqda markaa dhaqan habow badan oo ummadii loo geysanayo siiba da-yartii oo maaragtay waddo qaldan la marinayo horta gabaygan markaa sababtaas ayuu lahaa markaa waxay la noqotay bal inaan wax ka iftiimiyo fikrado badan markii dambe igu dhashay inaan kolkii hore intanoo dee abwaane inaan dhex qaado ma rabin laakiin tusaale kooban inaan bixiyo baan doonayey hase haatee dee way la taraartay oo waa iska farabateen marka adigu tirada kolkii hore ilaa 92 abwaan baan meesha magacooda ku xusay gadaal dhowr nin oo kale aan ku darayo waxa filaya imika ilaa 101 inay yihiin baan u malaynayaa maasha allah waxaa kaloo nuga jeedaa raggan inaanay taariikhdoodu lumin oo la baadi doon tago oo nin waliba wixii gabayadiisii laga soo helo in la ururiyana waan uga jeedaa midda kale iyadana waxaa iska magaranaysaa loo baahan yahay kulliba allahuma salli calaa maxamed wixii raggan waxaan uga jeedaa raggan aan magacyadoodu meesha ku xusay rag waa abwaano geyga soomaaliyeed oo dhan oo geyga soomaaliyed oo dhan laga yaqaano ragna waa rag gobolada qaarkood laga yaqaano ragna waa rag gobolada iyo degmada u dhasheenoo keliya laga yaqaano waxaa ku jira rag gabayadooda la yaqaan laakiin magacoodu aanu caan ahayn ayaa ku jira markaa dee hala gunucsado nin walba wixii laga soo heli kara hala doono baan leeyahayo taariikhdoodii hala raadiyo si aanay inooga dhiman waayahay aynu gabaygiis ka bilaabane axmedow muddaanka hadhana hawlihii gabay axmedow muddaanka hadhana hawlihii gabaye waxaanse sabanka uga hayiraanku hawlayaaye axmedow muddaanka hadhana hawlihii gabaye ma hawaysta maansada haddaan waayahayn jiraye waxaan sabanka uga hayiraanku hawlayaaye waxaan sabanka uga hayiraanku hawalayaaye haweenkii buraan buri jiriyo dhaantadii iyo heesta iyo niman halwada oo sidii sabi hadaaqaya iyo qoladan heelada tuntuu heer la joogsaday iyo qoladan heelada tuntuu heer la joogsaday afka waxaan higaagaba marbuu hilayga diidaaye halka iyo hiraabtii xaliyo hadhimadii maanta waxi huriyey mooye qalbigii soo hargeli waaye waxay huriyey mooye qalbigii soo hargeli waaye ragga haatan joogee murtida u hanqal taagaya iyo odayadeennii hore iilka lagu hooyay hal abuurka soomaaliyeed nin iyo heerkiise hel abuurka soomaaliyeed nin iyo heerkiise hawraarta maansada haddaan habuga faalloodo hadna uma sinayn aadamu tan iyo habiile ragu unba
hoggaanka uu hayo loo hanayn jiray. reegunbaa hoggaanka uu hayo loo hanayn jiraye haddiise maanta weel loo helay oo haama laga dhaanshay waa nin iyo hayntiye hadday hibata laabtaadu hadaliyo hilbaba waa inay kala hufnadaane. heedaliyo hilbaba waa inay kala hufnaadaane mana hagaagta xaajadu haddaan loo horbaxantayne. hadhuubkiisa u madhan ninkii faraska heenseeyay hanfigiyo dabayla dhacuu ku hafan doonaaye. hanfigiyo dabayla dhacuu ku hafan doonaaye sidii heega roob iyo cirkoo halalaclaynaya hordhaciyahan buu leeyihiyo qaar hadoodilane halka ararta lagu horiyaa lagu hagaagaaye. ninka ararta lagu horiyaa lagu hagaagaaye ninnase gabayga iib kuma hele waahidda aroore intii hurinta b b cdiyo hebeel u baaqaayay kuma yaal dihaal ka hadliyaa soo hanbaabiray. kuma yaal dihaal ka hadliyaa soo hanbaabiraye wax waliba hubuu leeyahoo lagu hagoogaaye heryada siday uga rogeen habaqlihiiyacay haydarto badan bay faleen hadiise maayaane. haydaarta badan bay faleen hadiise maayaane hormada halkaasaan dhigahay iyo sheegaydhe hujuunkii khaliifkiiyo ugaas halabsigii shaacir heli mayno weer lagu hirtiyo halistii idaane. helimayna weer lagu hirtiyo halistii idaane hagaag laysu waajahay haddii gola la hedaamo hormuudkii cabaada iyo nuur mahadhadii jaamaciyo waxaa haloosii ogaa badhiyo hebaane. iyo waxaa hagalo sii ogaa badhiyo heemaane hiladii cayuun iyo xirsiyo hanaayihii cabbi cawadoonayaan tu hollada la hunguraynaynin heli mayno ina beenaliyo hawgi cali jaare. helimayna ina beenaliyo hawgi cali jaare hubkii ina cabsiya iyo carab hadhici jaajale bucul iyo cismaan haari iyo hanadadii awdal hudle iyo hankararkii xayiyo mahaya liibaane. hudle iyo hankararkii xayiyo mahaya liibaane axmedkii sidii harabiyale lagu hagaagayey hodaarkii indhooliya afgaab camanjihii hoyday heli mayno cali geelle iyo higilkii qorleexe. helimayna cali geelle iyo higilkii qoorleexe habaarkii dallaayad iyo xuur halakadii ciise higtii weerar iyo caamir iyo ereyadii huube hankii ina galaaliyo cabdiyo lama hurii feeti hootada ducaalii carabay bari ku haylhaylay cilmigii jacaylku halligee hodanu geeriyooday imika higaaduu ka tegay laga halqataaye. imika higaaduu ka tegay laga halqaataaye hanaankii gahayriyo salaan hilimadii raage mahabrade aflow iyo jadeer himiladii saahid heli mayno aw yuusufkii heeganka ahaaye. helimayna aw yuusufkii heeganka ahaaye hanqarhkii darwiishka iyo dhuux
hadiyadii qowdhan haldhaa iyo xarbiyo tarabi iyo hoga tuskiyaadan hoggaanshiy gabyayaan tabiyo halowgi bareege hoggaanshiy gabyayaan tabiyo halowgi baareege halgaadii qamaaniyo tixdu cali ku haraamay halyaygii casayr iyo xuseen hubantidii faarax heli mayno hilinkii cigiyo hogoshi lanjeere helimayno hogoshi cigiyo hogelmayno hanadkii cigiyo hogoshi lanjeere boqorkii filkii inuu hantiyo ku hindisoonayey hal xidhaalihii lagu dhuftiyo hadimadii gaadhay heli mayno mahmahadhiyo hadalkii wiilwaale helimayno mahmahadhiyo hadalkii wiilwaale hurre iyo gamuuta iyo xoog halabadii saalax hoobaanta cumarkii ka tegay laga hamuun beelo halgami ismaaciil miriyo maqashe habiile halgami ismaaciil miriyo maqashe habiile sidii aar hamaansaday markuu laabtay ka higoodo hiyigiyo shucuurkiyo codkii hadda kicinayay hasawihii timacadaan hibanayaan qaare saawihii timacadaan hibanaya qaare hurdankiyo hambooriga haddii ragiisu haneedo markuu fule huluulaha gale soo hargali waayo cabdilaahiba hanan jiriyo hodankii guuleede cabdilaahi baa hanan jiriyo hodankii guuleede hilkii ina gardaasa iyo dage horumarkii quulle halkuu ina faruur buur murtida hore u gaadhsiiyey nin kastoo naftiisa hawiraa haban kari waaye nin kastoo naftiisa hawiraa haban kari waaye hoggii maxamed nuur iyo cambiye heedhay ina bayle mahalmaamin maxamuud caliyo haarigii fadale waxaa maanta loo hadal hayee looga hadhi waayey hereer iyo burcaba waa raggay ugu hanweynayde hereer iyo burcaba waa raggay ugu hanweynayde hohdii cali sharmaarkiyo godkuu halac ka liishaamay hilaacii baxnaan iyo afeey halasihii yowle siduu ciga biraaru hanjabee kabacdow heeray wax badan bay la heedheetiyeen hawshi barigiiye iyagays halleeye sidaa uma habseeyeene iyagays halleeye sidaa uma habseeyeene hinnig iyo waxaan imanayaa hadalkii nuur jiire hulkii maxamed xaashi iyo dacar hanadkii aw jaamac gayigeenna waa laga hayaa heedii ina baaree afcadkii fardaa kala hufee hibada loo siiyey halal dhaga jarciy aadan guray waan hayaa weliye halkuu gooni heensaha dhigtay iyo heelkii laga waashay hirad iyo gadiid faarax iyo hibitiqii mooge taasoo haliyey baan hayaa hilimadoodii intaasoo halyay baan hayaa hilimadoodiiye u hadaafe aakhiro raggii howlkarka ahaaye halkanna caawa kuma koobi karo qaar kala hadhaye hambal iyo salaam baanu diray hadiyad waayeele ha yeeshee waxaan la hinqaday oo hadalkay geeyey hawd iyo hargeys iyo togdheer hilinka la ascaano hobya iyo nugaal hoose iyo haaman iyo doollo hoosada sanaag iyo barbaran hogobyadii awdal ka hayaantay maansadii dhulkay hoyga ku lahayde ka hayaantay maansadu dhulkay hoyga ku lahayde inkastoon hoggaanshiya abwaan haybna ka ilaanin weli ma haya qaar la higsado garaa halkoodii iyo hunguraan hantaa taca hayaa hoday dadkii qaare
guraan hantaa tacahayaa hoday dadkii qaareen sidii neef dhurwaa ku habsadoo mici ku haylhaylay sugaanta geerida heshiiyo dacowga hiigaya hadba waxaanu saafaacidaan sii hudda ogeyne afkuse hadal madaayee hadduu soo hirmaco uurku heeraabta nimankii horaa laga halqaataaye hanfada naftiisa hawirow hubucu waceebe hanfada naftiisa hawirow hubucu waceebe nin waliba wuxuu hidin kariyo hadafka weedhiisa rag hubsiina badan baa jiray oo nabid halmaamayne wayse dhaqan habaabeen raggii goolka hayn jiraye wayse dhaqan habaabeen raggii goolka hayn jiraye ninkii gabayga kala hadiye hibada loo siiyey hablihiiyo markii hooballada laga horraysiiyey hirwa kama duwanaa maansadii haybadda lahaydee maxaan haatan kaga daalayaa maan iskaga hoydo maxaan haatan kaga daalayaa maan iskaga hoydo aad iyo aad baad umahadsantahay axmed colaad qorane alla ilaah uu yahay horta xuskii abwaanada waa 100 iyo dheeraad baa tiri 100 baan malaynaya 100 raggaa xaggaa ku xustay horta waxyaabaha uu cajiibka ku yahay gabaygan cumarow weli horta nin gabayaa ah ama raggii dhexeen gabayadooda haynaa ahaada ama ragga noolbe nin isku daya weli oo raggii intuu xasuustay yidhi bal raggaas hala xuso wuxuudana hala raadiyo waa gabaygii iigu horreeyey ee aan arko ama aan maqlo aad buuna ugu mahadsan yahay axmed waana wax loo baahnaa si dadka loogu baraarujiyo wixii inaga lumi lahaa ee dhaxal ahaa afkii iyo murti ahaaba loo raadiyo marka ereyo badanna way ku jireen inkastoo la wada fahmayey haddana anu bal mid baan horta yar weydiin lahaa axmedo waxaa jirta gabayada degmadan hargeysa herar baa la idhaah soo ma waxaa kaloon maqlaa waa dooxa herar kaa hargeysa marama waxaa kaloo la yidhaha waa heen waxaa kaloo la yidhaha maroodi jeex waa run bal saddexdaa magac tuga herar unbaa mise waa waxay odayaashu ugu yidhaahdeen markay doox ma soo dhaqaaqaa markuu xoogay socdo imika halkan xoogay inoo weydaarto ayaa la yidhaahdaa horta herar la yidhaahdaa markuu ina weydaarto wixii dhinacanka xigana waa heen baa la yidhaahdaa si gu yidhaahdeen marod jeexna waa magaca guud marod jeexna waa magaca guud weli intii beriga cali marodiga aada u joogi jirayo eriyadan oo shareernaan jirtay iyo marodiga aada u joogi jiro markaas asaa la odhan jiray waad mahadsan tahay waxaa kaloo gabayga ku jiray cumarow kolka raggaa loo eego yacni gabayaaga ahaa ee uu soo xusay gabayaagan dambe wuxuu intooda badan ku sheegay inay iska hantaatac tahay wixii la tiriyo laakiin ana waxaan qabaa rag badan oo gabayaabsiisa ayaa jiro oo nooloo yani iyaguna ku jira inkastoo haddana xusay inay kuwaasu jiraan haddana malada cumarow maxaad ku diri lahayd cabdalla waad mahadsanta horta waa saad sheegtay runtii hadduu jiro abwaan hore isugu dayay inuu gabayaaga soomaaliyeed gabay ku sheego haddii uu jiraba anisa ila tahay imalaha ma maqlan horta waa kii ugu dheeraaba noqonaya waa kaas hadraawi horta waan xasuustaa abwaanka soomaalida caanka la yidhaha maxamed ibraahim warsame hadraawi maanse waxaa jirta la yidhaha hal abuur oo uu leeyahay oo waxoogaa abwaanaa uu ku sheegay dhowr nin buu sheegay waxoogaa ma badna horta malaa waxaan isleeyahay haddii de abwaan soomaalida hore usoo hadal qaaday uu jiro horta waa kii ugu gabayga ugu dheeraan kaana gabay maahayna hees bu waana anu magac kalaan u bixin lahaayo horta hiil abwaan baan odhan lahaa ano gabayga waa qaadan karaa de isaga hiil abwaan ayaa horta anu ku tilmaami lahaayo inta badan ninka gabayaaga ah ee caanka ee soomaaliyada la yaqaano waxaan leeyahay ninka soomaaliyada ninka gabayaaga ah ee soomaaliyeed ee aan ummadda soo gaadhin hadduu nin kaloo abwaani magaciisa ku dara gabaygiisa sidaasaa lagu bartaa waxaa ragga gabaygiisa marka halkan ku sheegayo in dee sida ay ku galaaneen lagu bartay taarikhda kusoo gudbaan baa laga yaaba ku noolaadaan taarikhda ugu noolaadaan marka runtii waa faa'iido aada iyo aada muhiima oo soo kordhiya abwaanku waka oo dee haddee waxay noqonaysaa matalan anu inta aan maqlay imika intii in badan oo raggii aan maqlay way ku jiraan in badan oo aan qudheedo aan hore u maqan way ku jiraan marka waxaa cajiiba weliba waxyaaba sida uu xafiday axmed wararka oo dhan oo u soo helay bari galbeed koonfur waqooyi intaba marka axmed su-aal baan weydiin lahay abwaan
boqol iyo kow nin baad halkan ku sheegay axmeduna dhaho ha me abwaana waa tahay ilaahay baa kaa dhigay ilaahay baa kaa dhigay abwaane taytalkaagi weeyaan su-aashan habaanka weydiina waxa weyan cabdallow boqol iyo kow nin buu gabaygiisa ku sheegay ragga abwan miyaad yani gabayadooda nin walba wax ka haysa mise taariikhiyan magacyadoodu baa kasoo gaaray qodob horta hadal yaroo cabdalle goo dhawatay yidhahan horta wax ka idhaahde markaan leeyahay ragga qaarkood aan dhaliilayo dee ragga dhaliisha lahumaan dhaliilayaa abwaanada rasmigaa dhaliila raggan intay wax isku bardaaduqoodiyaan dabeetana dadka wareerinaya ayaan la hadlayaa abwaanada rasmiga ah horta kuma jira waa ka reeban yihin taasi waa qodob midda kale su-aasha cumar haddaan usoo noqdo raggan horta badankooda gabayadooda rag fara badan horta waxbaan ka hayaa rag badan oo aan abwaanimadooda un maqlay ayaa jiro aanan gabayadooda aanay wax buuran ka haynin ayaa jira ya marka waxaan meesha ugu soo wada ururiyey in la baadi doonto taasaaba horta cabdallow xagga hore baad ku sheegtay taasaaba muhiim in magaciisa horta la helo ninkaasi nin gabaya ahaayo jiro oo taariikhda ku jiray taasaaba horta muhiim kolkaa ragga uu axmed soo wada sheegay oo dhan cumarow waa gabayaabay ahaayeenoo godka gabayga amba geeraarkay isticmaali jireen sida uu axmed ba imika isaga uu isticmaalo godka gabayga laakiin ragga dambe imika abwaanada ee beryahan dambe soo kacay matalan hadraawi iyo gaariye iyo yamyam iyo ragga lamid ah iyagu waxay isticmaalaan godadka jiiftada iyo heesaha ayay godadkaa kale amba hees hawleedka yay isticmaaleen waa bad ka mida badaha dee maansooyinka iyaga markii la weydiiyey layidhi war gabayga godkii gabayga maxaad uga tagteen waxay yidhahdeen wax caqli gala ayay keeneenoo godadkaa kaloo dhiman lahaa ayaanu noolaynay bay yidhahdeen oo waa yani wax meesha ku jirta iyaduna baahi loo qaban weeyaan laakiin sida axmed sheegay dadkiibaa ku khatalmayo wixii sidaa loo tirinayaba waa gabay iyay leeyihin marka aqoon bay u baahan tahay dadku inay kala bartaan wixii jiiftaa geeraarkii gabaygii heesihii kale hees hawleedka badnaa ee buraanburka ee dumarku leeyihiin waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in la barto oo qofku u kala fiirso yidhaa war ma gabayba war ma heesba weliba cabdallow kaa dhexgalay abwaankan uga bixi doonaaye taariikhdan abwaanku ka warramaya raggan markay noolaayeen waxaan filayaa may badnayn jiiftooyinka iyo geeraarka iyo raggu gabayaabay wada ahaayeen sidaa daraaddeed ba dadku gabayun bay maqli jireen geeraar iyo hees iyo dee wax xataa kala saaro oo sida yihiin bad walba teeda na may badnayn markaa sidaasa deetana dadka imika jooga keentay in wixii la yidhaahdo ay u qaataan inuu gabay yahay waxaa kaloon idin xusuusin lahaa ayada abwaanadan halkan ku xusay rag baan magaca awogooda adeegsaday waan magacoodii kii abootoon ahayn sida masalan cali jaamac habiil oo kale habiil baan adeegsanay waa gabayga dee qaafiyada kumaysa ragna waxaan adeegsaday magaca aabahood masalan cabdi khaliif oo kale khaliif baan odhanaya ya abdiidaan oo kale iidaan baan odhanaya waa qaafiyada qaban karaya meesha ma qaban karaya waayahay waan kusii soconaynaa un bal hadda axmedow waxaan rabnaa gabay kale oo kaa aan ka dhicino sidaa u dheer oo bal hadda aad isagana caawa halkan inoogu soo aad nooga soo dayso bismillah alxamdulilah waad mahadsantahay cabdalle gabayada dhaadheero dhib badan bay igu hayaanoo aniguna waa igan xanuunkan xiiqdaa leh had iyo jeerna gabaygana waxaan jeclay inaan ku coodeeyo marka waa yahay waxaynu bilaabaynaa gabaygii habar dugaag yuu kaaga baahan yahay inaad wax hordhaca iyo faahfaahin xoogay baa laga bixinayaado gabaygan habar dugaag horta wuxuu ahaa dhalashadiisu 3 waxaanu u badan yahay sarbeeb waxaynu u gabaynaa waraabayaasha marka gabayga xaggiisa horena furu ku leeyahay xagga dambena furu ku leeyahay maadaama dadku imika reer magaalkan dambe af soomaaliga ku yara adag yahay af soomaaliga waa weyni si loo fahmi karo kolley waxaanu inooga baahan doonaa saan filaya sharax badan haddii inuu suuro gasho waxooga baynu taataaban doonaa
markaa gabaygan habar dugaag waxa uu ku socdaa burburkii soomaaliya iyo waayo aragnimadan ka helnay siyaasiyiinta africa gaar ahaan kuwii soomaaliyeed ayuu ku saabsan yahay waxaan doonay bilcida iyo isshabaxaan makhluuqa ilaahay nimankan madaxda inoo ahi dabeeto bahalkaa waraabahan waxaan si nimankaas aada bay isugu dhadhow yihiin haddaba waraabuhu dhaqanka soomaaliyeed wuxuu ku leeyahay murti fara badan oo isaga loo tiiriyo kolley waraaba ma hadline laakiin loo tiiriyo waxaa la yidhi waraabow ari maad raaci ayaan kee buu yidhi waxaa la yidhi waraabow ari maad raaci wuxuu yidhi macdaba ha ku darin waxaa la yidhi waraabow haddii hilib lagugu rarto ka waran wuxuu yidhi ayaankee waxaa la yidhi war waraabo waxaad yeesha waxaad ka warantaa goormeed u farxad badan tahay wuxuu yidhi markaan raq ka imaado raqana kusii socdo ma dharaarina laygu heriyeeyo midna laygu hogaamiyo markaas maan u farxad badanahay buui waxaa kaloo leeya waraabe ayaa wuxuu u yimi wan cidla jooga oo baadiya waryahay wanow nin yahow yaa kula jooga cidina ma joogto baadi baan ahay war feeraha nudub ku leeyahay hayga qoslay uu dhintaa layidhi markuu qoslay waxaa layidhi waraabe ayaa soo ashkatooday wuxuu yidhi niman yahow madluum baan ahay waa lay caayaya yuurtaa lay hayaa anna waan toobad keenayoo iminka sidii hore mihi waxba ma cuno waxaan doonayaa markaa wuxuu la hadlayaa odayaashii iyo cuqaashii iyo madaxdii iyo salaadiinta ummadda u talinaysay waxaan doonayaa weli magaca layga bedelo aamin lay bixiyo dee madaxda beeshana laygu daro dee ceebteydii horena la maydho waxaa la yidhi ku aamini mayno niyo adigoo dee waraabaha wax walba cunaanu ku ogeynay wankaa maaragtaa maanta la joog haddaad soo nabad hoyso waa ku dooranayna madaxweyneanu kaa dhigan magacii horena waa lagaa bi'in ma garanaysaa dabeeto markii laga tegay buu dawankii yaraa kolba suu dhinac ugu gujinay bahalin guri lagu imtixaamay iyo kowka ka siiyo markii dambana ila gu saaray iska dhamaystay waryaa waa tadlay waa toobadkeena soo wankii cunay dee ilka melihe gacmo melihe isaan ilkaa ugu soo qabanay markuu iga cararaba ayuu dee rabo waxoo dhan waan iska barraaciyey buu yidhi waxaa kaloo soomaalidu tidhaahdaa waraabe canaanay waa si walaalkii waxaa la yidhaho kale waraabaa yidhi waraabo haddii kaba lagu talo ka waran dee haddii kaba lai talo alxamdulilah haddii kalena rabilcaalamiin oo dee anugu isu kaymid waxaa la waraabe la laga gaari waa ayana waxba lagaga qaadi waa haddaynu sheekada waraabaha intaa kusoo ururino waxaa la yidhaahdaa waraabuhu qolyo waxaa jira la yidhaahdo waraaba la hadal waxay sheegaan inuu waraabuhu sida soomaalida oo kale qabyaalada aada ugu ba-an yahay dabeed kooxdii reer waraabiyo xoolahaba de waad aragtayoo kooxibu intii isku xerayba way israacda way istaqaanaa neef aanay garayna haddii u yimaadana way waadaaliyaanoo isna wuu ciyaaqayliyaa hadduu geelyahayn wuu ololaa markaa waraabo qariib hadduu waraabayaal kale u yimaado iyagoo raq cunaya way dilaanoo digaday ka dhigaan waanay kufsadaan baa la yidhaahdaa ka qariibka ah markaa waraabaha weyne waraabayaasha aabahooda hadduu yidhaahdo waa ninkan waa nin qariib ee hilibka idinla cunay iska daaya wuu iskala cunaa way daayaan hadduu laakiin ka eriyo markaasuu qayliyaa markaa wax waraabala hadalku yidhahda wuxuu leeyahay waar haddaynu reer hebelna waxba laynooma ogola waar soo yaaca waaran wax iska celin waa sida siyaasiyiinta soomaalida oo markuu kursiga ku fadhiyo uu raqdo isagu saa u raqayo uu labada gacmoodba ku cunayo cid ma yaqaano maalin alla maalinta meesha la yidhahdo waar soo dhaaf ayuu odhanayaa yaa reer hebelay waxba laynooma ogoleey cadaaladii baa meel lagaga dhacayey waxaasuu shubaya markaa gabaygan meelahaas waxaa kaloo la sheegaa inuu waraabuhu yaqaano geeda gooyada ama faalka almuhim aynu gabayga iska bilaabane waxaa kaloo la yidhaa waraabaha waxay soomaalidu siisaa doqonnimada oo dhan isagaa la siiyaa waa nacasnimo hungurixumo ta kale hadduu qof cunayo qof hurda hadduu u yimaado meel kale ma qabsaday halkaa wejiga ayuu qabsadaa meesha buu qabtaa saqajana wey waa siyaasiyiintan oo kale waxaan jaalada la gelinaya midwalo jaasiyad meel kaga dhawaaqaya sooma ya waaye markaa gabaygii baan iska bilaabanaynaa waxay hataa aynu markaa tusaalooyin badan soo qaadanaayo waraabuhu markuu gaboobo xilka maka degaa mise wuu xejistaa
iyadana gabaygaaynu ka dhaxa karno su-aashuna dadkay u taallaa waa sidaas waayahay ragalow riyada beena waa lagu ragaadaaye ragalow riyada beena waa lagu ragaadaaye rakashada amuurahan ruxmiyo reerkan degi waayay rahma boodo xaajada haddaa run isu sheegtaane rahmabooda xaajada haddaa run isu sheegtaane raxmaankan ku dhaartay yaalii raasiqa ahaaye shir la raarayo on ragu maqnayn laguma raageene cisha noolba waxaan sii ridnayn laguma riiqmeene ciisha noolba waxaan sii ridnayn laguma riiqmeene haddaan guriga hoos laga rakibin malaha raandhiise ufadiya dabayshuu ruqaa dhanisu raacayee marjadii cuntada raajise radiisaysa umaaha marjadii cuntada raajise radiisaysow maaha soomaali waxa raamsadoo mariyay oo ruugay halkay beledu naga raacday baan raadiyo helaye raja malaha duulkii dhurwaa reerku aaminaye reejo malaha duulkii dhurwaa reerku aaminaye shacbiyow gondaa laga rujee riiqdi ka idlaatay markuu bahal ratiga kaa dilo eed dhaawac kaga reebto mid kaloo isruug raaciyaad raarta gelisaaye waraabaa hilba lagu rartiyo si rabaqidiisu isba wuxuu la rayraynayaa waa siduu rabaye afkaya rigrigisow markuu eega ruri maayo afkaya rigrigisow markuu eego ruri maayo raxan habardugaagii hadday xoolo wada raacdo reerey iyo irmaan kolay ku tahay neef rajadu maasho iyo raasamaalki iyo riyaa reerku ku caddaysto riximkiyo agooma ilayn haluma reebaane raaxan habardugaagii hadday xoolo wada raacdo reerey iyo irmaan kolay ku tahay neef rajadu maasho riximkiyo agoomaha ilayn haluma reebaane wax la ruro wax lagu raadgatiyo qaar la rubad gooyo iyo qaar ragaad lagu eriyo rayska laga oodo rabbi uma tibeeyaan markay madaxdu raambuusto miyuu kuraygu uga raynayaa sow raficin maayo miyuu kuraygu uga raynayaa sow raficin maayo kolba gool la raygalay haddii la midi roorteeyo inkastuu u roonyo wuxuu dhalay u raaxeeyo ragga sariya soo raacyadiiyo habaqlihii raaska iyo kuwa rakuubka u wadiyo roondadiyo gaadhka raba markuu cantuugu hambada raqayidhahdaay reebac markuu cantuugu hambada raqa yidhaahdaaye kolba rabaca toban taabiyuu raashinka u cuuro rawiska u guddoonshaa markuu rooska ka hiraabsho xertu u waxay ku raacdaa wuxuu aabbahood rabo xeertu waxay ku raacdaa wuxuu aabbahood raboe hoggii qaranka lagu soo ruqruqay laguna raad qaaday raqsi tumadka ubixii kacay ee sabanka loo reebay dadka oo ramiimka waxay daba raxaleeyaanba waxay soo rakoocdaba markay kala ruqii gaadhay kolba reer galbeed iyo waxay ruushu cararaanba hadba beela reerood waxay badhu rixlaystaanba kolba kooxda rayse siduu rabay u naafaysa isagu ka raalliya waftiga waxay u raacaanba kolba kooxda rayse siduu rabay u naafaysa isagoo ka raalliya waftiga waxay u raacaanba dharaartuu raqoobe dhurwaa roori kari waayo inkastuu ruqdo raabaqoo riishadu istaagto xilka kama ruqsaystee kursiga ruugga ku xabaalye nafta wuxuu la rooraa markuu ruufku soo dumoye
neefta wuxuu la rooraa markuu ruufku soo dumo isagoo rasada yururoo meel raraba yaala intuu riingareeyay cabbaaraa wajabiyaane markaasay rogaan oo wixii dida u raafaane dabridkiyo rugii tababarka iyo roondadiyo gaadhka hadba guuta reedhiya wuxuu raystan geliyaaba hadba wuxuu rideeyo warmaa ruxa yidhaahdaaba racfaankiiyo hadhaagiyo xulkuu kala raseeyaayee sadka uma rixeeye kuwii laga tabroonaaday hadba waa rukaasaa intuu roonku soo maro hadba waa rukaasaa intuu roonku soo mara ee raqaskuu ku maamuli jiriya rabadinka eeday dulmiguu ka raarido waxay raaba celiyaan baa rawuxuu isugu dhaariyay ragax ka siiyaane wuxuu isugu dhaariyay ragax ka siiyaane rafiiq male dhurwaayada yaryari mana rabaysmaane rawiskama noqdaan show ilkuhu kamana raarmaane goortay lafaha rugayaan kama radeebmaane goortay lafa rugayaan kama radeebmaane reeraha markuu guri waxay raqa dhusleeyaanba rafku eriga ruux gooyadiyo raamintiyo boobka run xasaynta raaskala gurkiyo raraga doonsiinta iyo raada caascaasintiyo bacadku rookaynta ruqaqaaska roor maaradiyo rogashadii faalka waraabaha rabbaasaa gas iyo ragad hadduu yeesho raadgooyadii waa yaqaan raaqufkii dhalay raadgooyadii waa yaqaan raaqufkii dhalaye raqla orodka boqolaalka bahal waxay ruquusaanba ransigiyo isgarab rooridiyo miciya ruubsiintaa midna kama ride maalka waa ricidha gooyaane midna kama ride maalka waa ricidha gooyaane raxmad umale xoolaa haddaan ragu maleegnayne raxmad umale xoolaa haddaan ragu maleegnayne wax lasoo rigaaxaba markii ruudi la idlaystay iyagoon ka roonayn waxay duqa ribeeyaanba iyagoon ka roonayn waxay duqa ribeeyaanba rimaydiyo haleelada dhashiyo ramad ma dhaafaane iyagoo ku raran neef waxay wada riyaaqaanba raaqraaqi maayee markay dani u soo reebto raqda kuma heshiiyaane waa rabaqtankoodiye raaqda kuma heshiiyaane waa rabaqtankoodii riiq dheerihii soo rogee ragugu dheereeyey iyo kuman shilkaa ridi jiray iyo rookidkiyo suugaayo oday raqabad loo jariyo kuma raqaynayey iyo raabaraabi ortiyo hugunka soo raacay iyo kii ruqsada siin jiriyo riba xalaalaynta iyo kuman rabuudhka u dira oo rooyalka u gaadhaan mid waliba halkuu raawistuu ku harareentaaye kala ridadka kala reebashada guuxa iyo reenka markay ribato xooga haddii laysku yara raago raqay la raashimin jiraa soo ruqaansaday raqay la raashimin jiraa soo ruqaansadae markuu rugcadaadigii hilbii raarta wada geystay rasaas kuma dhuftaanoo wuxuun kagama reebtaane rag iskama dhigaanoo sidaa kagama ra'istaane rakaabkii hungoobiyo fulii booska laga riixay waryaa reer fulaan iyo hunguri lala ruclaynayo kolba raaca oo mani shacbiga qayla kula rooriye kolba raaca oo mani shacbiga qayla kula rooriye raq dhurwaaya laga soo eryaa oo dan u rogaye ilma aan rasmi ahayn waxay rabax ka siiyaan baa runka moode dhaartiyo wali raatubta ahaaye runka mooda dhaartiyo wali raatubta ahaayeen waraabiin hilbaa wada rartiyo kii ka rida waayey
mid baraas ka caabuda markuu dooni inuu raaco ra'yigiisa lama sii rogrogo ruux hadduu cuno ra'yigiisa lama sii rogrogo ruux hadduu cuno kolbase kii rakada loo goglee ruumi ku caweeyey ammaanada ku raagtiyo hantida duulka rida weyday inkastuu rakaabada jabshoo soo ruqruqa waayo rabashkama gaboobiyo kursiga ayaan laga rogine rabashkama gaboobiyo kursiga ayaan laga rogine hadbase raqamka caasiya markuu dooni inuu ruugo qolyihii rimoodhka u ahaa haw rakaabsado ilaynbadow rodaa loo guntiyo ride ma soo waayo ilaynbadow rodaa loo guntiyo ride ma soo waayo kolba kulan riwaayada haddii raybad lagu yeesho rawis rajiimka u guddoonshaa markuu ramiyo seeftiisa raaxeeya way isaga tumaan unugta raacdaaye khudbada raqiiska haddii loo dheg raariciyo riyaday kuma weeliyaan qolada raadiyowgu hadbawow riyaaqa intuu doobta soo rido hadbawow riyaaqa intuu doobta soo rido wax lasoo rafaadaba haddii taashki laga reebo duqii lagama raysto ardadugama reeyaane rijci iyo rufyaan baa bedela raaska sii faga meeshiyo rashiid iyo halkiiyo raritinkii gaalka weli waxa ku raystaba culkuu soo rabayn jiray rabbaanu qadaray ina sidaa noo rawixisaane rabbaanu qadarayna sidaa noo rawicisaane roonroonayaashiyo rifiisaban ka raad qaaday kolba gulufka laga soo ritiya gaaska ruga geystay reer hebel iyo reer hebel waxay nagu rigaystaan baramaalihii dhalay dhammaan soo rogaal celiye ramaalihii dhalay dhammaan soo rogaal celiye xiliyadan rakiigaa wixii ragiyo maal hoobtay ama reer magaalkii dalkiyo raacatada gaadhay mar haddaan ku roon la egmanayn male ka soo rayne ragga beleda raacdaynayo raaxa waa nabadee risiq waa yimaysaan haddaa rabashka daysaan risiq waa yimaysaan haddaa rabashka daysaan waaya aad iyo aad baad u mahadsantahay axmed bal hadda cumarow maxaa kaaga baxay gabaygaas waaya cabdallow horta gabaygu sida aboonku uu sheegay waa gabay runtii sarbeeb ah oo sharax dheerna u baahan dee qofkii aada ugu fiirsaday ee sugaanta wax ka yaqaana amba af soomaaliga yaqaanaana wax kala soo bixi karo laakiin waxaan odhan lahaa kolley halkan malaha waqti u heli mayna haddii sharaxiisa la galo su-aala ka weydiina abwaankii waxaan lehay waqti intan ka dheer oo sharaxiisa uu isagu gaar u yahay ayaynu insha allahu abwaan ka codsan doonaa balmar iniga noo dulmara insha allahu taala insha allah waayahay ku darso weliba cumarow gabaygani wuxuu ka socdaa xarafka qaafiyadda ra-da ra-duna af soomaaliga way ku yarta nimanka gabayaaga ee waxtiriyana naqaano amba aan maqalnayna way ku yartahay nin ra-daa ka tiriya matalan buugga laga qoray in cabdilla xasan oo kale sayid maxamed cabdilla xasan oo kale buugga gabayada lagu wuri dee mid mise laba yaad ku jira oo midho yaryar oo weliba ahaa aan badnayn laakiin gabay sidaa u dheer oo ra ka socda uu yaryahay waana kii igu badnaa aan maqlo gabay ra ka socda marka yacni af soomaaliga siduu hodan ugu yahay gabayaagan axmed iyo halkaana aad ka arkaysaa oo ereyada kolkay yar yihiin ninka gabayaaga kolku ereyo badan helo inuu hodan ku yahay afka iyay ku tusaysaa marka ereyo badan oo macno badan u badan ayaa ku jiray laakiin rukaasa intuu rukaasa intuu ron kusoo maro waa ka rukaasadaas magace macnaheeda balad rukaas dumarka midaan ka maqlo wallahi inaan ku rukaasi wallahi inaan ku rukaasi waa garaacid weeye marka waxa weeyaan ninkii odayga ahaa markuu soo maro xeryihiisi iyo wasiiradiisi iyo dee raggiisii ma garanaysaa ka maaragtay dee boqonogoynta iyo alaabta halista haddii aan aqoonin ma garanaysaa ayuu dee dib socd iyo kacandiid iyo xidhaayo markaas
دوا رخصي ورخصي عادي شافكي go ciyaarta markay tumanayaan iyadoo carabi ka soo jeeda عربي جدا rabaqtankoodii baa ku jiray iyada ربقتنكودي بردودنك بردودنك رقدكم ايش يا ربقتنكودي marka dhaqaali wadanka la cunayo de khamriga iyo abal wuxuu ka jeedaa daayirtu say u fahmaan bardoodan rabaqtan bardoodankii waaye aad iyo aad baad u mahadsantahay bardoodankii wey waxaan filayaa cabdallow kulley dee jalsadan ama golahani waa golihii saddexaad caawa aynu abwaanka maxaan ku dhaha suugaan kaga qabano ama gabayadiisa aynu ku qabano abwaanaduna kolley waxay dhaqan iyo dabeeca u leeyihiin weliba de sidan axmed oo kale abwaanintii kale gabayadooda kolley waxbay ka hayaanoo weliba khaasatan axmed gabayo badan buu hayaa oo abwaanadii hore waa sidaas marka waxaan filaya abwaanku haddii uu inoo ogolaado bal gabay ama laba inuu inoo dhexgelin lahaa gabayadiisa caawa abwaanadii hore sida sayid maxamed cabdulla xasan iyo xaaji aadan maxaan ku dhaha afqalooc iyo rag badan oo runtii anuu shaksiyan weliba gabayadooda aan aada u xiiseeyo way masne cumar waxaan kulli waqti bashi yar hayso oo wax badan sii fulin karmay caawa laakiin bal laba gabay oo gaagaaban sidii oo xaaji aadan leeyahay intaan ayaan horta mee isku dayi doonaa gabay yar oo aan isleeyahay malaa waa heer caalami oo xaaji aadan leeyahay oo tacliyi ah ayaan halkan horta bal raacin doonaa kolka horeysa gabaygii baynu iska bilaabanaynaa xaaji aadan axmed xasan xaaji afqalooc gabay ka mida gabayadiisii kuwa aan isleeyahay waa heer caalami kooban oo aan sidaa u dheerayn tabaalada adduunkiyo amniga samada loo tuuray tabaalada adduunkiyo amniga samada loo tuuray daciif nabad ku taawoonayoo tabaya oo waayay iyo turuqya weynaha dulmay iyo marku taag leeyay tan kaga fakerayey faalladii tahaygu reebtay tiraanyadan soo kacoo tahanka qiirooday tahan ku raagiyo codkaan talalayoo reemay tartarradiyo feedha ay jabay taqallubkii jiifka tixyaroonka idhi baa jirta waa tawaawaca ee balantiriyo faallada adduun gelinba waatooye balantiriyo faallada adduun gelinba waatooye waa duni tab iyo xeelad iyo tacaddi joogaaye waa duni sharcigu taagan yahay taagana badane waa duni furqaan laga tegiyo to injiilidhi waa duni furqaan laga tegayo to injiil yidhiye waa duni rag tamashleynayaa tegay nujuumtiye waa duni qumbula tuurideed loo tartamayaaye waa duni diyaarada tanliyo taar xukumayaaye waa duni tiyaarada tanliyo taar xukumayaaye waa duni tilmaamaya xaqii taamusoo lumaye ka tagaa la yidhi qaar dhulkay tiru lahaayeenee tabti bahalihii bay cuneen taag yarow wahay tabtii bahalihii bay cuneen taag yaroo wahaye kuma yaal tacliinta iyo cuntada taabi kari waayey iyo kuman tallaabada gaboo cudur la tiicaya taakulo la siiyaa ka roon toogashiya xooge taakuloon la siiyaa ka roon toogashiya xooge dhibtu waxay ka timid dowladaa tirada weyn yeeshay 90 gaaja haysaa jirto 10 dhargaysaayee kuwaasoo wuxuun lagu taray tahay aqoontiye mar haddii caddiga laga tago oo la istixgelin waayo inay nabadi taam noqoto waatu aan la eegayne sawaariikh nin taabiyo ninkii tooray bira haystaa ninba tu awoodaba dil way isugu tagayaane naftuna waa tu qudha oo ma jiro 10 nin haystaa kolka uu faqiir tago ma jiro taajir hadhayaaye
gantaalaha tamuumiya suntaa tuurista u dhowehayd reejinkaasa ku tuman tacabkaysaanee goortay xadaaradii tagtee taangi ku cayaaro tiihiya jahlaa lagu dambayntii lasoo marayee tusbax weeye gees laga furo tuudis wada raaciye allowya dhib waxaa loo tabcaday sama ku taageera allowya dhib waxaa loo tabcaday sama ku taageera. waayahay gabaygaas xaaji aadan yani dowladahan waaweyn iyo dhaqaalahan layska qaatay ee maaragtay adduunyadii kale gaajo lagu dilay yani waxaas gudubkii kibirkooda wakaas un weeyaan baan u malayn wuxuu xaaji tilmaamay ka hadlaya yani maaragtay cadaalad darada dunida la kala dhex wareejinaya la dhacayay maxaa kaaga baxay cumar waxad wallahi cabdullah horta xaaji aadan dee waa la yaqaanaayo runtii soomaali way taqaanaa ninkaasi wuxuu ahaa nin aada iyo aada runtii ilaahay u siiyey mawhibo xagga suugaanta iyo xagga ra'yiga labadaba sida bal beyd ku jira gabayga nimanka abwaan axmed inoo akriyey haddii uu faqiir tago ma jira taajir haraya anaha bal siduu wax kuu tusayo tujaartu dee faqirka ku nooshay faqiirka ku nooshahay aada soo garan macnaha meesha camiiqa uu fikirka wax kala soo baxayo beydkana ku tusaya mogtay ilaahay dee ku siiyey mawhibada marka runtii dee waqtiga aynagu koobane waynu jeclaan laha inaynu waxyaabo kalena kasoo qaadanayn xaajiga gabayadiisa oo abwaanku inaga siiyo cali cabdallah weliba xaajigu wuxuu ahaa nin badmareenahoo adduun dhan soo maray oo waayo aragahoo aada iyo yani malaha 60 sanood buu qurbo ku jiray iyo qurbo ku jiray deedna markuu soo noqday kadib oo dhulkii soomaalida ku soo noqday waa xilligaa wuxuu waaye aragnimadiisi ummadda uu gabayga ugu gudbin jiray bal dawad axmed oo gabayadii kalena bal waxaan raacinayaa waxaa laygu yidhi sida taarikhyaanadu ii sheegeen dhowr iyo 40kii ayaa xiliyadaasoo ay soo ifaysay xorriyadoonkii iyo wax noocaasi xisbiga SYL iyo wax noocaasa ayaa malaha gumaysigii oo dee wax doonaya inuu wax kala khiyaameeyo ayaa xisbigii SYL oo koonfurta laga soo aasaasay oo dabeetana rag goboladan u dhashay intay soo xambaareen fikirkii ay keeneen wadanka ayuu gumaysigu dee qaar ka mida dabada ka qandhiidhiyey dadkii halkan degayey uu yidhi dinku kasoo hadho oo diido oo waxaa ma garanaysaa dabeetana dad baa markaa ku dooday fikir odhanaya anagu saadaanu nahay mabanihi soomaalidaas saadaanu anagu nahay marka gabay yaroo kooban buu xaajigu waa la filaya inuu laygu yidhi intaa uu ka roonaa laakiin intaan ka helay baa intaas mar gabaygaa yar baan raacinaynaa waxay aada buu kooban yahay kii hore aada buuga yaryahay mana 10 beyd ma gaadhaan malaynaya laakiin wax badan baa ku jira oo xigmada waayahay soomaali diidiyo annagu waaba kala dawe dadka ururay baa lagu helaa dowlad iyo xooge diintii afkiiyo caadadiyo daatadii midabka iyo aradka aan wada degnaa daawan u xidhaye dignayoo wacdinay oo haddaa ugu daraydeene wixii bani israa'iil dilaa idinna doonteene iyagaa daniyey inay khalqiga darajo dheeryiine haddii saawr dib hawkaaji yidhi waanu dayn karine dabciga ka qaaliba haddaa doonta xaal kale dabciga ka qaaliba haddaa doonta xaal kale waayahay aada iyo aad baad u mahadsantahay inkastoo gabaygu intaa ka badnaa haddana waa intii aad heshay haddana intani waa intii murtida uu ku fadhiday waa kaas oo uu dadkii la hadlayo dee yani waawaana un bal waxaan raacinayaa haddii ilaha idhaa isagana gabay yaroo kaloo xaaji aadan leeyahay oo waxaa la yidhi 70aadkii meelaha markay taariikhdu ahayd ayaa niman saraakiishii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo loo tababerayay inay geyigii soomaaliyeed ee maqanayaa soo dhiciyaan ayaa intay raamo meedhan samaysteen bay suufiyeyeen oo markaasaa bahala maqaamyo la yidhaah oo maqaamkii sheekh isaxaaq maqaamkii sheekh ismaaciil jabarti kii sheekh hawiye kii balaayo kii kan waxaasaa la samaystay
markaasa halkaa qaraabada lagu rugaayo la yidhaha wardigaa la rogayaado hebel iyo caawa xalayaa riyooday oo khiyaal caynkaasa xalaan baa la galay dabeedna xaaji aadan ayaa arrimihii markuu ogaaday buu qaadan kari waayey markaasuu meelaha maqaamyada ah ayuu tegey xaaji aadanada saynu naqaano nin caqiido toosan ayuu ahaa waryaarhan bal iska warrama oo nabadoo midaan saraakiishii de raggays yaqaaneen baa lays waraysto oo saraakiishii dalka xoogga dalkaatiine qarankii iyo hawshii laydin dareemnaadayo sheekh isxaaq baa xaggaana kasoo haraatay xaggaana cabdilqaadir baa kaga soo haraatay iyo kanoo dabeetana saasaa dhulkiiba badhowen saasaynu ku qabsanay waxbay ku sheekeeyeen khiyaal de noocaasa oo dabeetana anagu dee wardigu baanu haynaynaayo caynkaas ismaaciil jawarti baa xaggaana kasoo haraatay waxaasa dee la shubay markaasuu dabeetana suu u tuso wax wuxuu markaa gabayaro aada u qurux badan ayuu halkaa ka tiriyay xaajigu taariikhda bani aadmigee tirada weyn gaadhay taariikhda bani aadmigee tirada weyn gaadhay wixii taliyay xoog buu ahaa tan iyo haabiile marna lama tixgelinayn daciif toog la joogabay meerna lama tixgelinayn daciif loo toog la joogabay weli taqiya sheekh taa'ib iyo nebi tansiil keenay nina looma turin aan warmaa lagaga tiifaynee sharcigaan quwadii tiirinini meel la tegi waaye inkastuu mabdu u toosan yahay tamar hadduu waayo waxba cadowga kaagama taro taaduu ah haduure wax taxaaba diintiyo cadliga toobigaanada ee ta quray maqlaan waa madfice maaha tuur hadalee garta an moote taageerahayn tororog weeyaane geertaan moota taageerahayn tororog weeyaane adiguba tix raaco khalqigan turuqu weyna aday tagoog wada shaqeeyiyo cilmay tamarku yeesheene tubta sharafta loo maro waxyaal tiirbiro adage tog cidhiidhiya kaaxiga iyo tuur libaaxya lahee tayiisa iyo dhiishaad cabsida kaga tallowdaaye haddaad taqadum doontana mar waa turunturootaye taasaa digniin laga bartaa taxadir weeyaane tanka waxaa ka weyn baa qalbiga lagu tahbiibaaye tanka waxaa ka weyn baa qalbiga lagu tahbiibaaye ninka taaka taakiyo diraactii walba uu joogaa inta uu carshiga tagahayee koru taraarayo dhulkii waxa ku tara suufiga timaha dheereeyey macdanta carada taalla ee tuulan gurigeenna rag ninkii karaamiyo tuflow kaalay kaga tuuji timirangeed qod xale loogu bixintaa ninaba waaye ta macaanadoo dacar cunaa tacab ku gaadhaaye quraanjadu goday tahan qoday tacab ka geysaaye taana waxay u dhigataa markay dhibi timaadaaye tiraabkii jinkaad maqashay iyo daasaduu tumaye kula taliyey waanaduna waa tii walaalnimo dambi baan ku siiyo xaqii taabudka ahaaye dambi baan ku siiyo xaqii taabudka waad mahadsantahay axmed labada gabeeba horta xarafka taada ayay ka socdeen ee uu noo dooray muxuu ahaa axmed gabaygan dambe xaajigu nimanka inuu fadhi waxba ku iman buu iyo tusaaleynaya gobonimana inayna ku iman fadhi weliba wuxuu u baahan yahay kolka dhib la galo dhibtaa dabadeed ay maaragtay guushu daba taalo maxaa kaaga baxay hadda cumar cabdalla waa saad sheegtay horta waxbaan xasuustay xaajigu wuxuu caan ku ahaa kabidiisa ugu quruxda badan taabay horta u badtaay taaduna xuruufta adaga inta badaneen waliba quruxda badan adaga gabi karin waliba quruxda badan waliba quruxda badan taada iyo laamka iyo sidii hore soo sheegnay waxaan xasuustaa gabayga caanka ah ee tabaalo iyaba waa tabaalaha waqtiga taynu aragnay tu kaloo ka daran baa jirtay taana bala sheego tu oran jiray waxaan maqlay gabaygaasi wuxuu tiri 760kii xaaji
haddana waaqaca maanta jooga siduu u tilmaamayo dee dadkii baan waxba korin ma koraan halkii bay taagan yihiin waxaa aada ula yaaba beydka taalooga naagaha jirtay timaha qaar xiray ee sida waraabaha tartama toonka cararaya in dhaqaalo u turay madaxna tuugaynin ubadna tuugaynin ee 10 jirka kici lahaa faray tagugiisa iyaba waa tabaalaha waqtiga taynu aragnahay tu kaloo ka daran ba jirtay markaa runtii xaajigu caan buu ku ahaa tilmaamaha runtii fariid fi noocii ku ahaa waxyaabaha runtii waaqaca saameynta ku leh marka waa saad sheegtay wayaan cabdalla waa runtii wax badan baa ku jira waa kaas oo faa'iido ah waayahay axmedow bal haddeed gabagabadii baynu joognaa waxaan kaa codsanaynaa bal hadda mid kamida gabayadaadiya aydu noogu soo gabagabaysa waan kusoo gabagabayn doonaa tixdii yareed ee arooska waaya soomaalidu waa tan gumowday waa tan gumowday boqolka dab kala shidatay cadowgeedii garan weyday ma garanaysaa soomaalidii horena waxay odhan jirtay cadowgayo haddaan kuu jabo jeefaaf ha ii gelin ha i naxariisan weeye marka bal masafadii xaajiga ee gobonimada markii uu halgamayey ayaynu raacinayna waad mahadsanta ee uu la xidhi doono markii la xidhi doono uu jeelka ka tiriyey oo masafo markaa tani weeye ma jiifto kolba kaa tilaahdo waa sidaas marka waxaa la yidhaahdaa isagoo dee 90 jir ah markuu gubaabadii iyo kicintii soomaalida iyo wargumaysiga iska kiciya diin waayey uu dee dadka doonayay inuu nooleeyo heeryada gumaysiga la iska tuuro ayay kolba dee kuwan afqaadadii intii u tagaan dee gaalka odhan jiray ninkii baa maantana halkan wax ka wadwada dabeetana dabagal baa lagu samayn jiray dabeedna waa la xidhi jiray xaajiga isagoo markaa 90 jir meelaha da-diisu tahay baa la yidhaahdaa ayaa jeelka loo taxabay maalmahaas dabeetana waa ingiriiski xumaa dee gudaafka meesha joogay dabeedna isagoo jeelka ku jira ayay qaar ku yidhaahdeen xaaji hadhuur maad cuni hadhuur markaasuu dabeedna la hadlayaa dadkiibuu u warramayaa gobanimada hawl yari nina kuma helaayo haasaaweya jiib hurda kuma timaadoy halkay taal wax kaa xiga halasiyo dabweeye hore inaad u jiidhaa hadafkeedu yahayo himiladiiyo guushuna dhaxal hadhaya weeye halkanaynu joognana rag baa loo hagaajay xigmadiyo bustaaxumi ka hagaagsan ruumi hamaanadaa gala laga haybadays handhashiyo nin liitaa ka halaan halaaye nin sidayda hawl kare hohba kama yidhaahdee halyaygii nag ruumiyo jamaal baa u hoyday haymaniyo gaandaa waya lagu hor joogay haad biidhigiyo biraha habra looma tumanine nin haraati diidaa hoggaan looga yeelay hadhuurkayga ii keen halamaa xaalkue yani xabsigu inuu raggii ragaha xabsiga soo wada ayuu tilmaamay meesha meel rag loo sameeye tahay aanu ka baqaynin isaga waana runtii waxaa kaloo la yidhi xaajiga waa kii dhul badan soo maray adduunyadaas wadamo badan islaamna waa kii soo maray wadanka eritrea ayuu talyaanigu ku xidhay baa layidhi oo magaalada casab la yidhahdo lagu xidhay markaa la xidhay waxaa xabsiga loogu geeyaa layidhi ninkii isna daraawiishta abaanduula ahaan jiray abshir dhoore la oran jiray iyo talyaanigu hobyo ka qabto casab buu ku xidhay xaajigoo ku xidhan ba halkii loogu geeyaa xaajigaa ka sheekeeyey yaa la yidhi oo dad ka sheekeeya baa ii sheegay markaa wuxuu yidhi xaaji wuxuu yidhi anuu iska fadhiyey abshirna wuxuu yidhi anu ma fadhinaya meesha marka lugahan ka xidhnayn buu yidhi haddana maqsinkan waan ku jirna habeenkii o dhan suu bahalkii ula rafanaya suu ula rafanaya buu iska jabiyu yidhi deedna isaga kolkaasuu yidhi xaajow salaamada waa dhaqaaqay markaasuu xabsigii kasoo baxsaday kolkuu soo baxsaduu xuduudda kasoo talaabiyo talyaanigii helay waa la eryadaa la yidhi oo
ciidan amxaara yaa helo talyaanigii laaya halkaasoo abshir kaga soo bixu arsoobo ku yimid oo marka dambana waa ka harar imanaya marka xaajigu intuu dibadaha joogayna xabsiyadii lagu xidhay casab baa kamid ahay falastiin waa lagu xidhay oo wuxuu kamid ahaa xubnihii falastiin u dagaalamayay markii kolkaa ninkuu nin mujaahid weyn ayaa taariikhda meel weyn kaga jira waa kaas bal hadda axmedo haddeed gabagabadii baynu usoo beydhnay oo aad mahadsan tahay bal hadda kii aynu kusoo xidhaynay ee noo doortay waayahay kolley gabagii yaraa ee arooska ayaan ku xidhaya dee siyaasadda maynu dhex qaadinay asalkaba hadday maase ugu bunugta labtaydu dulmi uma adeegay xaqaan olo leeyahay mana aqano hadalaada iyo arartan dhacdheere salkaba hadday maase ugu bunugta labtaydu dulmi uma adeegay xaqaan olo leeyahay mana aqano hadalaada iyo ararta dhacdheere aqalyow sunna lagu alkumay laguna aasaasay ee ayadaa lagu akhriyay iyo axaadiista kolla iilan maysidee sharkaan ka abhinayaaye kolla iilan maysidee sharkaan ka abhinayaaye ma afoobo hoy macsida laga ilaashaaye mar haddii islaam lagu dhiso udubka loo taago adduunyadiiyo aakhiraba waa ku aflaxaysaane ifsaadkiyo tuwayskiyo wixii horeba loo eeday orgido riyaa lagu dariya gaalisu ekaynta macaloosna waayadan dadkii ku ibtilaysnaayee agagaarka hoygiyo gola eega waxa jooga haddaan eegay aadmiga fadhiya maan ilaaleeyey waa helu diinkiyo gabdhi edebta ficnaaye waa ahalu diinkiyo gabdhi edebta fiicnaaye aroosyaho wallaankuu barye udubadii raaga insha allahu waxaan eegayaa inaad ahaataaye awlaad qur-aanku ababto ahalu tawxiida oo aan kitaabkiyo inkirin aabba iyo hooyo indhahaa ku doogsada markay edega jiifaanee sidii meel ugbaadoo midhiyo ubax ka laalaado inam iyo gabdhaa ugu qorxoon inay ahaadaane raxmaanka awood lehe caruur la isku iidaamay inta wacan inuu eebba kala siiyo ururyow alleylka isu yimi ducada amiindhe ururyow alleylka isu yimi ducada amiindhe inkantaasi waa ekaanshiyo murtida ila xidhkeedii intaasi waa ekaanshiya murtida ila xidhkeedii ooridan irdaa loo dhisiya inanka loo gaafay iyagana waxaan odhan lahaa eraya waayeeli adiga mas-uule ee xilkaa dhexda kaa fuulay arrin reerku kama soo hadho waa ogsoonnahay ha ilaawin waa aakhir saben laysla ogsadayee adiguna afooy caawa waa aqalgalkiiniye haddaydaan ismaqal qoysku waa kala irdhoobaaye ogor iyo iinyay haweenku ibtiloobine aqbalo haddee waa sidii waajibku ahaaye aqbalo haddee waa siduu waajibku ahaaye aroos laguma raagee anoo soo afjari doonaa allahayna dhowree hadduu aqbalatayda in yarbaa inoo dhiman tixdaan soo agaasimaye waxba yaana muurkale ka rogin oda dhacameedee waxbaa gabaygu yuu ila ordino ila awaarayne intaasaan kusoo ururiye aad isuu sheegaa intaasaan kusoo ururiye aan isuu sheega waaya cumar cabdallahu sidaa wuxuu ku sheegay runtii waa siyaasaddii iyo gabayadii ku saabsanaayan halganka ayaynu kaga nasanay maansadan runtii waana runtii maanse aada iyo aad dee dhexalgalaho wakti kasta oo joogay jiil kastaba la jaan qaadaysa ogor iyo inyay haween ku ibtiloobeen waa beydkaa ku qosday oo waxaan maqlay isagoo hadda ka hor nin kale aroos ka tirinaya wuxuu lahaa habeenkaa ogor iyo inyaad ku ibtilowdeena bu ahaa isagoo markaa dumarkii utus toosa ayuu la hadlayay yani
goor kastii waxaan maqalnaa aroosyada idaacadaha markaynu dhegaysano hees baynu u saaraynaa baa la yidhahda heestii arooskaa la yidhahda malaha dee gabayga axmed haddii alla yidhaah waxaan rajaynaynaa in maaragtay dadku ay isugu hambaliyeeyaan o kan qaataan oo idaacadaha ay kasii daayaan biidni illahi alkariim arooskii aroosadiina uu la hadlay ducadiina uu kusoo daray oo uu duceeyey dardaarankiina uu raacay waa yani waxa weeyaan waa fariin ku socota dad labo kasta oo yani guur gasha oo aroos gasha iyo waana u yahay waa sidaas aad iyo aad baad umahadsantahay axmed caawa oo ahaa qeybtii saddexaad oo aynu kusoo qaadanay maansooyinkii ama gabayadii uu inoo xaggan inooga tiriyey axmed colaad qorane caawa halkaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa waxaa idinla socodsiinayey waa cabdalle xaaji iyo cumar oo loo yaqaano cumar booshari iyo axmed oo isagu ahaa dee marti sharafkeena koowaad oo caawa qeybtii saddexaad saan horeyba usoo sheegnay aan ka qabanay iyo alxuseyni oo isagu inoo hayay kamarada iyo farsamada intaan dib u kulmi doonana nabadgelyo iyo ammaano allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu